wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland ayaa gaadhay degmada Riyaxidho ee hawdka gobolka Togdheer. wasiirka waxaa deegaanka ku soo dhaweeyay waxgaradka odayaasha iyo bulshada degmadaasi, isagoona kormeeray habsami u socodka shaqada riigbiyoodka deegaanka, kaasi oo laga bedelay soolartii lana saaray mashiin casri ah oo u keenay bulshada deegaanka. agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Maxamed Xasan Saleebaan, mashiinkaasi ayaa si weyn uga qayb qaatay gurmadka iyo samata bixinta dadka iyo duunyada abaartu saamaysay, iyadoona ay ka kala yimaadaan booyadaha kala duwan ee biyaha ka dhaaminaya riigaasi deegaanada kala duwan ee gobolkani Togdheer iyo sidoo kale kuwa fogfog ee xuduudka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. isku duwaha biyaha maamulka degmada Riyaxidho, odayaasha iyo waxgaradka deegaanka ayaa wasiirka ku soo dhaweeyay degmada, iyagoona uga warramay baahiyaha deegaanka, waxaanay si weyn ugu mahad celiyeen agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda oo deegaanka kaalin muhiim ah ugu jira. Maxamed Xasan Saleebaan oo ah madaxweynuhu ninka uu noo cogay ee noogu jira haddaanu nahay degmada Riyaxidho, aad baan madaxweynahana ugu mahad celinaynaa. in wanaagsan baad noo doortay, waanu ka haynaa cogashadii, wax kale badanna waanu ka sii doonaynaa. agaasimahana waxaanu leenahay reerku dee kugu maaliye insha Allah taala meel ka sii sareysana waanu kula doonaynaa haddii alla idmo. waxaan leeyahay madaxweynaha aad baad u mahadsantay. waxaan u mahad celinaynaa agaasimaha maaliyadda Jamhuuriyadda Somaliland oo ka qayb qaatay inuu isagu maanta xoolahan cabaya hijiinka ay ka cabayaan uu teeno. ayaan u mahad celinaynaa oo nudu matala annaga dawladda oo deegaankan iyo degmadana ku matala. waxaan leenahay agaasimahaasi xilkiisii iyo xilkii dawladda iyo xilkii qaranka iyo xilkii uu shacabkan iyo ummaddan u hayayba uu ka soo baxay. ilaahay jaas aakhiraha ka siiyo. wasiirkii deegaankan markaa u sida shidaalkii maanta ay riigani ku shaqayn lahaa dadkan u waraabin lahaa. oo foostooyinka laga cabayo insha Allah wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaan baadoonkii waa galeynaa. waxaan laga doonayaa intaangigii iyo dararkii xoolaha insha Allah. wasiirkeenni halkaa joogo, xaaladdeena la socdo, mar kasta wax yimaadaana la inaga warhayo. waxaan kaloo mahadnaqaynaa agaasimaha ku bedelaa xukuumadda deegaankan oo isna si dhow ula socdo shaqadan. waxaan kaloo mahadnaqaynaa isuduwaha iyo maarey ku-xigeenka aniga habeenka marra waxaan markaa waxaan leenahay wasiir ku soo dhow deegaankaagii. halkan ceelka degmada imika dadka ka cabaa dadkii Riyaxidho way ka badan yihiin. waxa isugu yimid dad fara badan oo ka jaajada ka yimi. waxaan halkan uga mahadnaqaynaa agaasimaha maaliyadda ee soo bixiyay jiinkan. waxaan u mahad celinaynaa isagana aad iyo aad u miisaan weyn oo degmada ka soo jeeda agaasimaha maaliyadda Maxamed Xasan Saleebaan. aad iyo aad baan uga mahad celinayaa oo gudoomiyaha reerka si isagana aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. waxaan karnaa waa wasiirada foolaadka ee markaasi degmadiis xukuumadda xubinta degmada ka soo jeeda agaasimo guud Maxamed Xasan Saleebaan. degmadana xiriir fiican leh, xukuumaddana matalaadeedii ka soo baxay. waxaan kaloo mahad celinaynaa agaasimaha guud ee maaliyadda u mahad celinaynaa, wax badan ka qabtay deegaankan. waxaan leenahay jazaakumullahu khayr. ninka maanta aad ilaahay ka dhigo solar bay ahayd, mashiinkii baa lagaga cabayaa ceelka. aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa agaasimaha aad ilaahay ka dhigo wasaaradda horumarinta maaliyadda. labada qof aad noo magacowday degmadan u dhashay wasiir Cismaan iyo Maxamed Xasan, runtii matalaadda ay dadkan ay matalayaan si dhababay u matalaan oo ay ugu hagar baxeen oo ay ugu shaqeeyeen. madaxweynaha taa uga mahad celinaynaa. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda mudane Maxamed Xasan Saleebaan oo isagu ceelkan juhdi badan ku bixiyay sidii uu dadka iyo xoolaha faraha badan leh ee xilligaada ku jira ay uga faa'iideysan lahaayeen. agaasimo guud aad baad mahadsan tahay. Allah ku barakeeyo, miisaanka xasanaadkana Allah ku saaro. wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ayaa dhankiisa bulshada deegaanka ku wareejiyay shidaal loogu talagalay in muddo riigu isticmaalo, isagoona si weyn ugu mahad celiyay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Maxamed Xasan Saleebaan oo degmada tacab badan geliyay una keenay mashiin casri ah oo lagu rakibay riigbiyoodka deegaanka. agaasimaha oo hawsha iyagu markii aan wada hadallo xilis ka saaray mashiinka, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. mas-uulku hadduu marka wax duruuf lagala hadlo ama duruuf loo sheego siday tahay uga jawaabo, waxa weeye waa mas-uuliyaddiisii oo uu wax ku darsaday weeye. marka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. marka dararka insha Allah taala waanu iyadana sida ugu dhaqsaa badan ayaan uga soo jawaabi doonaa. duruufaha kale jira degmadu way badan yihiin sidaad tiriseen walba xilligeeda iyo anaguna warbixinta saadiiseen baan meelaha leh aan u gaarsiin doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. Abdullaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, telefishinka qaranka Somaliland, Burco.